barashadii horeysay babla aan ku kulannaa marta aad ku nooshahay anigoonka boganbu basu kula dhaqaaqi barashadii horeysay babla aan ku kulannaa marta aad ku nooshahay anigoonka boganbu basu kula dhaqaaqi بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدنى السلام يا ولا دمانتين صدر دمتين إن ولا لها يقول حدا ما عرفتي إن أدنى السلام يا سلام ديرن أين هو ذي دون صومرنا يا وحن أدو فرح سنة هاي إن ما عرفتي إن أن إسكسو نقولني إسكسو نقول ونكسن إن ما عرفتي وحن markasta waxaan idinka mahad celinayaa yani sida aad igu xiran tihiin oo ma aragtay aad ila socotaan ayaan aad idinkaga mahad celinayaa videogan kii ka horeeyay aan kaga hadlayay xasadnimada iyo xiqdigana runtii aad baad uga ficil celiseen oo suulal badan iyo commenti waxaan arkay qurux badan maasha Allah waad ku mahadsan tihiin ya aad baad ugu mahadsan tihiin ma aragtay la'aantiin abaar waaye ya la'aantiin ma aragtay abaar weeyaan marka waad u jeedaan markaan fadhiisanayana saasaan always u fadhiistaa oo dee waa in gabadhu ay urursan tahay sooma ya okay saad u jeedaan dhinacayga midig waxaa yaala shaah ayaa yaala marka caawa taloo nimco maxay idin wadaa nimco galaan ya sarinkuna wuu ka duwan yahay sarinkii hore aad iiga barateen marka taas waa aan u jeclaystay inaan videoga halkan caawa aan ku duubo oo ma aragtay insha Allah aan hawada idinku soo gudbiyo waaye programkan ka hadlay caawa waxa weeyaan xaqiiqatan waa program ma aragtay aad xasaasi u ah runtii waxyaabaha runta ana waxyaabo ma aragtay lama huraan ah in la taabto ama laga hadlo ama ma aragtay lays fikrad weydaarsado wax aad muhiim jiddan u ah anigu yani qofna ataagi maayo waan kasii cudur daaranayaa wax ataaga absolutely ma aragtay programmadaydu kuma salaysna laakiin wixii aan usoo joogay ama indhahaygu arkeen ama dhagahaygu maqleen ama aan shaahid u ahaa ama aan khibraddeeda leeyahay ama aan arkay communitygeena ku arkay oon ka dharagsanahay ayaan runtii aan aad programmadan aan uga hadlaa oon usoo gudbiyaa marka wax ataag la yidhahda ma jiro maaragtay shaaha lasoo qaato qolada koofiga cabta koofigoodii qaxwihii iyo isbarmuudadii meesha kama maqna kuleel iyo qabowba iisoo qaato oo iisoo dhawaada ya waxaan ka jeclaan lahaa inaan agteeda caawa aynu isku meel joogno laakiin hawadaasan kulley aan ku kulanaa insha allahu tacaala waaye programka caawa aan ka hadlaya waxaa weeyaan waa garoob vs xaas ya gabdhaha xaasaska iyo gabdhaha garoobada ayaa caawa xoogaa boxing ayaa ka jira meesha ya taasina waa kaftan laakiin xaqiiqatan programka magaciisu waxa weeyaan waa garoob first xaas ya ma fahanteen meesha sheekada u socoto okay waaye taa markaan ka gudbo kulley programkan caawa ka ugu horeeya ayuu noqon doonaa waa part 1 insha Allah saan rajeynayo part 2 iyo part 3 ba kulley wuu yeelan doonaa
oo anigu ma jeceli video badan in maaragtay wixii video dheer la duubo waayo aniga dadka waxaan ay boring ku noqday videoga more than 10-15 minutes hadduu ka badan yahay runtii ma daneeyo waan ka jeestaa markaa saa darteed mana videodeeda waad aragteen aan uga badin waqtiga intaa la eg waayo marka waqtigu uu socdaa programkii baan guda galaya insha allahu tacaala shaahina waa kanoo maaragtay uu ag yaalaa koobkaygaan shubanayaa yaa ha layga raalli ahaado shaaha ma aragtay gabdhaha dietka ku jira shaahu cadaysku kuma fiicna shaahu haddii base lagu cabeeyo waa okay laakiin cadayska runtii kuma wanaagsana marka taasina waa iga kulay waano laakiin anigu special diet kuma jiro oo ma aragtay taas waa inu cadaystay bismillah sonkortana waxa weeyaan sonkortana anigu kule dabcan ma jeceli sonkor badan iyo waxaan jeclay wuxuu inay wax yar ahaadaan oo qofku caafimaadkiisa inuu ka warhayo wax aad u muhiimsan marka sonkortana hala iska yareeyo Soomaaliya waayahay shaahaygii qacayaan ka siiyey okay programkan aan ka hadlaya waxa weeyaan waa gabdhaha garoobada ah carmalkana la yidhaaho kulley qof walba luqad buu yaqaan iyo gabdhaha qoysaska ee dee xaasaska ahee degan ayuu programkani quseeyaa runtii programka waxaan part 1 iyo part 2 iyo part 3 aan uga dhigi doonana insha allah dabcan qaybo badan buu leeyahay marka qayb waxay ka saameynaysaa maaragtay ragga qayb gabdhaha xaasaska ah qaybna waa gabdhaha maaragtay garoobada ah waayo markaas programku saas markuu yahay waxa weeyaan horta xaqiiqatan inagu Soomaali baynu waynu isnaqaanaa gabadhu maaragtay siyaabo badan ayay garoob ku noqon karaysaa marka garoobku waa qaybo ayuu kala baxaa dhowr qaybood kulley sida anigu aan u arkay ama aan u aqaano waxaan odhan karayaa 3 qaybood ayaa kulley uu garoobka u kala baxaa oo yacni gabadhu ay garoob ku noqon karaysaa ama garoobnimadu ay ku timaadaa kow marka u horeysa gabadha ninku ka dhinto maaragtay xaajigeedii uu dhinto markay dee ninkii uu ka dhinto oo gabadh madax bannaan ay noqoto dee waxaa la yidhahdaa gabadhaasi waa garoob taasi waa kow gabadhu markuu ninkeedu ka dhinto dee waxaa loogu yeeraa gabadhaasi waa gabar garoob ah gabadhu markay ninkeeda nacdo oo ma aragtay ninka dee ay ka taqallustay tiraahdo walaalow mac salaama taasina number 2 weeyaan waayo qaybta number 3 gabadhu ninkeeda ma aragtay ninku markuu gabadha naco waalay mac salaama ku yiraahdo hortaa hor alle dee gabadhii garoob ay noqonaysaa sooma marka 3 qaybood ay gabadhu yani ay garoob ku noqon kartaa ama garoobnimadu noocyada u kala baxdo waa 3 qaybood ilaan gabadhii iyadu wax ma furi karto soo ma laasim gabadhii ninun baa fura gabadhna waa gabadha laga dhintay labada kalena waxa weeyaan dee ninkii un baa ku furaya ama adigu nac ama ha ku naco moogta waayo markaas ilaan gabadhu waxba ma guursato waxbana ma furto sooma ninkaa mas-uuliyadda leh oo ilaahay mas-uuliyadda u saaray marka gabadhii waxaa leeyahay gabadhaasi waa garoob waayo gabadhii markay saas kusoo noqotay garoob dadkii yani kama dharagsanaa gabadhani siday garoob ku timid ama ku noqotay ma gabadh ninkeedii soo nacdayba ma gabadh maaragtay iyadu lasoo furo lasoo nacayba ma maxaa la dhahaya ma gabadh ninku ka dhintayba yani intii og de way og tahay laakiin intaan ogeyn baa ka badan okay gabadhii markaa toosh ayaa la saarayaa oo ma aragtay diirad baa gabadhii la saarayaa oo shaambad gaar ah ayaa lagu dhejisanayaa especially xagga dumarka xagga ragga waan usoo socdaa waa programmada kale laakiin xagga xaasaska ayaan caawa ka hadlayaa gabadhii waaba la cambaareynayaaba markay saas tahay waxa weeye waxyaaba horta gafka waa laga fiican yahay qofku inuu carabka ma aragti inaad kantarooshido sa u haysid ayaa adduunkaaga iyo aakhiradaadu ay ku jirtaa wanaagaaga laakiin hadduu isagoo ku kantaroolu kaa xoog bato dee waxa weeyaan aakhiriya adduun waa lagu yaabaa
marka gabdhaha xaasaska anigu waxaan kula talin lahaa aad ayaad ma aragtay aad isku daydaan inaad gabadh markaad maqashaan garoob weeye aad u tijaabisaan inaad gabadha ma aragtay inaad quursataan inaad gabadha ma aragtay aad hoos u ridaan sidii ay idinka hooseyso kale in ma aragtay gabadhaas aad cambaaraysaan aad baan ma aragtay aan anigu waxyaabaha usoo joogay una arkay runtii tusaale hadeer gabdho waxaa laga yaabaa reer qoys oo meel degan inay gabadh ma aragtay carmalihi reerkii ay soo degtay jaar la soo noqotay markaa gabadhii xaaska ahayd somehow gabdhaha xaasasku majoritygood anigu gabdhaha xaasaska ma ataagayo runtii waa ra'yi waxaan soo jeedinayo iyo wixii aan arkay waana majoritygu sida ay sheekadu tahay markaa gabadhii xaaska in qofku kalsoonidiisu ay kor u qaadan tahay baa wanaagsan gabadhii xaaska ahayd markay aragto gabadh garoob ah oo dariskeeda ah tusaale ay ninkii halkaa ku aragto salaamu calaykum iyagoo isleh ama ma aragtay ay usoo wareegto xaafadda timaado gabadhii anteenooyin bayba taaganaysaaba ya anteenooyin iyo waxayba la baxaysaaba maxaa la dhahay toosh ay gabadhii ku qabanaysaa sidiiba gabadhu ayba ninkeedan interest ku tahay oo kaleeto ya gabadhii garoobkaayba waxaa laga dhigayaa gabadh ninkii kasoo horbaxaba danaynaysa ama damac ama hunguri ka galayo xaqiiqatan saa ma ah adiga saaxiibay xariifkan guriga kuu jooga hadduu libaax kuu yahay waxaa laga yaabaa gabadhaas walaasha ah ee maaragtay garoobka jaarkaaga ah in xariifkan uuba dooqeedaba ahaynba ya salli calaa dooqeedaba inuusan ahayn baaba laga yaabaaba ya ilaa qofku wuxuu leeyahay dooq buu qofka ilaahay siiyey inuu taybkeedaba ahayn ayaaba laga yaabaaba oo just walaaltinimo iyo daris un ay gabadhaas u salaamayso wiilkaas ay isku salaamayaan marka barhooniga dhulka dajiya oo ma aragtay isku filaada kalsoonidayna waa inay dhisan tahay always okay waxaan kaloo arkay gabadha xaaska waxay dhahaysaa wallaahi billahi bismillahi raxmaan raxiim garoob wallaana weligay noqonay ilaahu garoob ha iga dhigin ilaahu garoob ha iga dhigin bismillahi raxmaani raxiim weligay garoob ma noqonayo siad ku ogaate ya gabadhan garoobka ah iyaduba reer bay lahayd oo saasay usoo dhaqan jirtay ya inay kaa reer qurux badnayd laga yaabee inay kaa nolol qurux badnayd laga yaabee ma aragtay reer bay iyaduba beri soo lahayd marka qof noloshiisa futurekiisa ka warqaba ma jiro taasina waa gaf aada u weyn weeyaan inaad saas ay gabdhuhu u hadlaan qaarkood oo yidhaahdaan anagu ma noqonayno garoob ya iyo ilaahu garoob hanaga dhigin waxaas wax wanaagsan ma aha marka cambaarayn badan iyo waxyaabo badan oo saas ah ayaan ma aragtay aan ku arkay runtii communitygeena gabadhii waxaad u malaysaaba inuu ilaahayba nacayba sida yani dadkeenu ay u yaqaanaanba gabadhu ilaahay ma naceen just calafkii unba ama ninkeedii baa ka dhintay ama dee calafkii baa kasoo xumaaday ama hala noco ama iyado waxa soo nacda saas bay gabadhu ay garoob ku noqotaa inay kaa qurux badan tahay baa gabadhaasi dhici karta inay kaa karti badan tahay inay gabadh wax barato professional ay tahay in ma aragtay gabadh ka edab iyo akhlaaq iyo ururis badan inay tahay ayaa ma aragtay dhici karaysa gabadhaasaad cambaaraynayso just because waa gabadh calafkii ka xumaado yani garoob ah oo intaas baad uga dhigaysaa ceeb iyo ma aragtay wax bahalkii ah marka anigu talo ayay iga tahay gabdhaha ma aragtay xaasaska ahow bal tiin hoos u eega gabdhahaas waad saarantihiin somehow ka dega waxaa laga yaabaa hadeer gabadhaas garoobka ah nin bay isguursanayaan wiilaan weligiis reer soo dhaqan ama nin kaba weyn oo caruuro iyo reer soo dhaqan jiro hadeer single ah ayay gabadhii guursanaysaa garoobka ahayd calafkiibaa u galaya markaasoo waxaa leeya hebel war hebel habar buu guursaday hadda gabar waxaa laga yaabaa early 20s ama early maaragtay late 20s gabadh ah oo yar oo dhalinyaro ah oo hal ama laba soo dhasheen waxba aan dhalin waxaa leeya war hebel hada isagaa ka weynba ninkaaba ka weynba waxaa leeyahay war hebel habar buu guursaday caruuro wadata subxaan allah dadkeenu wallahi waa dad aada u cunsuriyiin u ah iyo haddaynu soomaali nahay waxyaabahaas aad baynu ugu fara dhuudhuubanna ya gabadhii waxaa laga dhigayaa baabaha kulley waxaasna u xuntay dhaqan iska ah oo la iska caadaystay unba ilad ragna waxaad arkaysaa iyagoo dhahaya wallahi gabdho iyagoo joogoo diyaar oo ayu nooc leh ayay ka dooqbidaan amaanu ka dooqbidaynaa gabadh garoob ah oo reer soo dhaqatay inaanu guursano waayo gabadhaas
dee experience ay leedahay waa gabadh adduunyada maaragtay wax kasoo aragto wax bilaaban yihiin waa gabadh lagu degayo dee reerkeeda dhaqan karaysa waa gabdhihii maaragtay rasuulka u duceeyey calayhi salaatu wasalaam rag badan oo dhaha ayaad arkaysaa runtii xaqiiqatan waa run gabadhu hadday reer maaragtay soo lahayd ninkeeda iyo reerkeeda say u dhaqato dee garan waayi mayso ay waa qof khibrad leh oo experience leh dee rasuulkiina wuu duceeyayo that doesn't mean gabdhaha inay habaaran yihiin xaasha lillah xaashaaka lillah waxa weeyaan waa siday tahay rasuulku wuu duceeyay gabdhaha maaragtay garoobada ah dabcan taasina dee wax sigrad ama aha wax laga wada daragsan yahay oo la og yahay laakiin somehow waxa weeye haddaynu Soomaali nahay waxyaabahaas ayaynu isla dhex yaacnaa marka qof walba meeshiisa ilaahay ha ku barakeeyo gabdhaha garoobada ah maaragtay ilaahay meeshooda ha ku barakeeyo gabdhaha xaasaska ah ee guryaha leh ilaahay maaragtay iyagana meeshooda ha ku barakeeyo gabdhaha maaragtay shabaabka ahin la guursano joogana maaragtay iyagana ilaahay meeshooda ha ku barakeeyo qof walba meeshiisa ilaahay ha ku barakeeyo oo maaragtay ha ku ilaaliyo laakiin walaalayaal anigu waxaan kasoo wadaa waxaas oo dhan isku soo duuduub maaragtay carabkaas isaga ah control gabar ay carabkaas ka adkoow adduunku waa iska gabagabo you never know future-ku wuxuu noqon karo wax aad gaf u samayso gabar walaashaay aad gaf ugu samaysaa waa laga qurux badan yahay hadal berita adiga kugu soo noqda waa laga qurux badan yahay marka aniga muhiimadeedu waxay carabka laga adkaado oo maaragtay hal caga dhigto okay programkii wuxuu marayaa 15 minute iyo xoogaa inkastoo okiyaalihii aanan okiyaalihii ka maqan yahay 15 buu marayaa iyo xoogaa markaa halkaas aan uga jeedaa marka insha Allah tacaala intaan ayaan kusoo gabagabeynayaa programkan isaga ah fadlan ra'yigiina iyo maaragtay idinkuna bal waxaad community ku aragteen waxaad ka dharagsan tihiin waxa idin soo saameeyay waxa aad soo aragteen waxaad ka rumaysan tihiin bal waxaan aan idhi idinkuna fadlan wiilal gabdhaba ila soo socodsiiya insha Allah tacaala oo commentigiina quruxda badan suulashiini yaa badhankaas casina taabataan insha Allah intaan hawada ku kulmi doono programkan ka xigi doona waxaan idinkaga tagayaa salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh